يوصل حصود ماشان وحدي عمودي قراني وصوترو أرض دارسو كدونو بسم الله الرحمن الرحيم نبضي dhegeystayaal lamaantii meel ka soo adaafaha dunida ka joogtaan halkan waa radio Harwanaag waa ka dhageysataan barta internetka harwanaagnews.com madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaayo ayaa maanta si rasmi ah u furay warlaliyaha cusub ee idaacadda radio Hargeysa kaas oo wada gaari doona dalka oo dhan warlaliyahan ayaa awoodiisu waxay tahay 100 kilowatt waxaana munaasabad lagu furay warlaliyahaasi maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta qaranka xafladaasi oo ka soo qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland salaadiin golayaasha iyo xisbiyada qaranka culimaawidiin fanaaniin iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan hadba barnaamijkan ayaan idinku soo gudbin doonaa hadalkii halkaas uu ka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaayo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin farxad weyn waxa ii amaanta inaan ka soo qayb galo xafladatan radio Hargeysa lagu baahinayo oo uu gaarayo dunida oo dhan sharaf iyo qiimo weyn bay inoo tahay qaran ahaan dad ahaan iyo ummad ahaan radio Hargeysa waa tii taariikhdiisa laga soo sheekeeyay dadkii dhisay dadkii soo abaabulay dadkii cilmigiisa iyo aqoontiisa dejay waxaan mahad ballaaran u celinayaa inta imika ka shaqaysa inta hawsha kaga jirta radio Hargeysa taariikhda uu leeyahay ka sokow radio waa waxa ugu effectivesan ama ugu waxtaroon ee ay dawladdu wax ku gaarsiin karto dadkeeda iyo shacbigeeda iyo dunida kalena uga karto waxa ay qabsatay iyo waxa ay gaadhay iyo waxa ay tarasatay marka radio wuxuu nagu fadhiyaa qiimo aad iyo aad weyn hadday guduudeena tahay iyo hadday dibadda tahay iyo qadiyadeena waynu fidnaa tahay intaba marka hawsha aynu qabanay ee qaran ahaan wada qabanay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa in Allah intii ka hawlgashado dhan ilaahayna waxaan ka baryaa inuu nagu guuleeyo oo meesha aynu doonayno aynu ku gaarno badeena waxa la inta ka shaqaysa iyo inta ka hawlgashada aad iyo aad baad u maasantiin waxa meesha Allah ta'ala waan ku dadaalnaa waan wadana waan ku farxanaa waxa u baahan tahay iyo wixii ay loo arko in marba lagu sii xajiyo awoodeeda iyo waxtarkeeda iyo inuu dunida dhan gaadho waan ka shaqeynaa gacan waan ka bixinaa waxaan leenahay wixii ummadda qabsatay iyo intii nala soo shaqaysay iyo waxaynu intaynu maraynaba waynu ka kordhin doonaa halka aynu maanta marayno horeynu aad uga mari doonaa dhinac kasta oo ku saabsan horumarinta dalka iyo waxqabadkiisa iyo nolosha dadkiisa horumarinteeda intaba marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahay waxaan ka baryaa inuu nagu guuleeyo hawsha aynu ku jira qarannimo radiogeeni waxaynana ilaahay inoo barakeeyo oo aynu meel fiican aynu ka marno aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaayo oo si rasmi ah xariga uga jaray warlaliyaha cusub ee idaacadda radio Hargeysa oo maanta dib u bilaabi doona baahinta muujada gaaban ee 41 mitirban oo guud ahaan dalka iyo mandaqada Geeska Afrika si wanaagsan looga dhageysanayo قلبي يوصل حصود ماشان وحدي عمودي قراني وصوترو أرض دارسو كدونو أطولها قلبي يوصل حصود ماشان وحدي عمودي قراني وصوترو أرض دارسو كدونو قلبي يوصل حصود ماشان وحدي عمودي قراني وصوترو أرض دارسو كدونو أطولها قلبي يوصل حصود ماشان وحدي عمودي قراني وصوترو أرض دارسو كدونو قلبي يوصل حصود ماشان وحدي عمودي قراني وصوترو
tadaarusu gudu adulahan qalbigiyo saylax soo damashaan ruuxadii camudiyo goorane soo duro arko tadaarusu gudu ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما انت قرن كان October سنة 2012 Republic of Somaliland Open of Operation the new radio Hargeisa officially opened by His Excellency Ahmed Mohamed Mahmoud Zilayo the President of Somaliland on 18 October 2002 وكوشي بوينه قرنكني وغاadho madaxweynaha oo ku hambalyeelina aniguna waxaan xasuustay runtii 1989 iyadoo balgubada la joogo xilligii ay salaf halgamaysay oo igu horeysay madaxweynaha oo gudoomiyaha sanamaha maalinta gacanteeda midig oo salaamay caloosha asaas madaxweynaha intaasay gudoomiyaha sanamaha madaxweynaha aad iyo aad baan xasuusanahay maantana isuduwa barnaamijyada radio Hargeysa inaan ahay lacag cusubna loo furay madaxweynaha ku hambalyeelina anaga Somaliland oo ana maanta ayaa geeska halka laga dhigaysanaya aad iyo aad baan madaxweynaha u mahadsantahay Thank you.